Sheikh Xasan Muhammad joogo garaashka macallin Makaraan oo gaadiidka hoy u ah muddo 5 sano gaadiidka korkiisa waxba lama saarin dadka gaadiidka ku shaqaysan jiray boqolkii baabuurtii lugahoodii ay gadayo waayaan waxaan ka codsanaynaa dawladda Abdullahi Maxamed Farmaajo Maxamed Abdullahi Farmaajo waxaan ka codsanaynaa iyo Xasan Cali Khayre ummadan oo asqaysan oo baabuurtii tiima garaashka ay taalo oo lugihii la gadayo waayo oo ilmahooda dhibaato hayso oo yuka dhibaato oo 5 sano baabuurta korkooda waxa la saarin waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay uga jawaabaan dikadana loo furo sidii awal looga shaqeey jiray oo cadaalad ahaydna looga shaqeeyo annaga dadka Soomaaliyeed noodada hadaad maqasho dawladu waxay dawlad ku tahay calanka iyo ciidda iyo dadkeera iyo deeqiisa dadka aad arkaysiin oo safan gaadiidka aad arkaysiin oo dhulka yaala waa xoolaha dawladu ahaadeen aniga waxaan ka tilaabsaday hilmaan hadal kuma jireen salaanka bacdi magacayga waxa la yiraahdaa Muxudiin Maxamed Jimcaale waxaan nahay dadka dulmanayaasha oo la dulmay shacab dhacaayo haddana sheeganaya in dawladu u joogto dawladanu ma indhahay laado waxbaysan u jeedin ma dhagay laado waxbaysan maqlaynin waa yaabanahay 5 sano dawlad hoosteeda shacab ka cabanayo shacab kale kufsanayo oo hantidiisa dhacayo oo asigi dilayo xoolahan aad u jeedin dadkii lahay maanta loo geystay gaadiidleydaas dhiban ee dekadu isticmaalka ilaa dawladii Sheikh Shariif dawlad kastaba ay ku tixgelin jirtay labadan dawladood oo hadda isaga sii dambayso oo tii Xasan Sheikh oo ayadu baabi'isay iyo mid Maxamed Abdullahi Farmaajo aan islaheena ayaguna isbedelay keenayaan ayaa waxa dhacday inay dawladii dhagaha naga xiratay Soomaalidu waxay tiraa maahmaah oo waxa jirto debiga doolood dhagihiisu wax sanbay maqlaan laakiin indhihiisu ma arkaan dawladdu waxay leedahay dawladii shacbiga waaye dawladan waa nabad iyo nolol warheed nabad iyo nolosha waxaan rabnaa dawladdu inay meel noogu sheegto ay tiraaho nabad iyo nolosha meeshaas ay joogtay aasta ma aan hayno nabadna lama hayo nololna lama hayo tiidii lamaad cabashadu cabadahayn in rafaadka uu nahaysada dawladda 10 goor 20 goor 30 goor macnaha la hadalin waan arday walaay inuu la hadalnayo wal ku qabad waasiin ra'iisul wasaaraha ma dhaladay Muqdisho dadkii deegaanka dhalad yalla ka doorashadiis dadka cabashadu cabadahayn ma arag waay inuu gaadiidkan macnaha inta yaal $150 misku bii korn $150 oo baad oo macnaha kii oo dekada haysidana birko qaadahay birko wasiirka gaadiidka qaadeelay oo misku bii korn rafaadkaas macnaha inta haysid insha Allah binillahi kareem laakiin ilaahay codsan darsadaan ilaahay walna qabado kor waxa fariisiyay gaadiidkii dadweynaha shakhsiyaadna siiyay bahalka la yiraaha mudnaantii dadweynaha iyo muxaahay xaqi dawladda dadweynaha waxa shakhsiyaad siiyay ee sheer dawladda iyo nimanka dhiig meeratada ka dhigteen sheer bay ku yihiin waxa kamida wasaaradda gaadiidka kamida ninka la yiraahdo Maxamed Abdullahi Omar uu hogaam ugu sareeyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Dheeri ra'iisul muxaaha wasiir dawlaha gaadiidka uu kamid yahay agaasimaha guud Cali Gacali uu kamid yahay ee dhiigga dadka Soomaaliyeed ka shaqahaya ee wixii adkaysan waayay ee ayaku siday markii shakhsiyaad markii loo xiray dhiig meerata ayay waxay ka qaadaan 150 gaarigi agoon baale dad masaakiin oo dan yar ah leh 150 bay ka qaadaan sheer bay ku yihiin ma dadka shacabka laga qabto ma dawladdu qabato waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka ilaahay baa inoo kiin kasay inaad madax noo noqotaan hase ahaatee waana dulmiseen ilaahay idin abuurtay oo jagada idin kasay ee madaxda nooga kiinagay baa idinku dacweynayna cid kale idinku dacweyna garan mayna dacwadayadi waa intaas ma been baa ka sheegay waa inta ma been baa ka sheegay inta ma been baa ka sheegay ma dulmanahay xoolahayagi ma la fariisin dawladdu ma ka mas'uul tahay ilmahayagi baraha ma ku daateen Allahu akbar maxaa ku mutaysan ilaahay laga cabsado dawladda loo aqli celsho masaakiintan waxa loo qabto biriga meeshan waa laga tagaa ilaahay wuxuu leeyahay markii oo ilaahay qofka bini aadanka wala dhimaha la joogma اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سرع حساب
maalintii yawm al-aakhiro oo yawmul bacsiga ah rida oo ilaahay ku madala garooman rida oo gees kale haday disho ilaahay bartaas maartay ilaahay uu kala xaqada bani aadanan oo ilaahay maartay waxsii oo masaakiin leh oo agooman leh in la xaqira ma ahan war culamaa u diinka Soomaaliyeed ka hadla nabadoonnada Soomaaliyeed aan ka hadalno ilaahay ha laga baqo ummadda ilaahay wax loo qabto dekada Soomaaliya iska leh cid shakhsi ma leh in walba shirkad baan waqti kaasado shirkadana la yiraahdo xaraan waay anaga dawladeena ma ahayno waan aaminsanahay waanu jecelnahay nabad iyo nolol tiri aniga waan aaminsanahay in culumaha nahay waana jecelahay laakiin